markaad maqasho ururka Alpha Trust waxa badhigahaaga ku soo dhacaya inay ahayd ama mar walba ay tahay hay'adda samafalka u adeegta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwoodii awoodin inay wax qabsadaan. sidoo kale hay'adda Alpha Trust ayaa hay'ad u taagan inta badan inay u gargaarto bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwoodii aan awoodin inay wax ka helaan meel kale oo Alpha Trust ee hore ugu ballan qaaday inay gaarsiin doonto wax walba ee ka yawoohday bulshada Soomaaliyeed oo gacantooda soo gashay. hadda munaasabadan ka dhacday magaalada London ayaa ujeedkeedu ahaa mid lagu taageerayay sidoo kale gacan lagu siinayay dhaqaale lagu yaboohayay bulshada aan waxba awoodin gaar ahaan kuwoodii ku nool dalka hooyo. qaybaha kala duwan ee bulshadii ka soo qayb gashay marti sharaf kale iyo waliba wakiilada Alpha Trust ee ku nool qaaradda Yurub iyo waliba America ayaa ka mid ahaa sanadkan martadii lagu casuumay inay ka mid noqdaan sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay aasaaska hay'adda samafalka ee Alpha Trust. marti sharaftii halkaasi ka hadasha ayaa dhammaantood ballan qaaday inay garab taagan yihiin sidoo kalena gacan ay ku siinayaan sidii bulshada Soomaaliyeed oo dhibaataysan loo gaarsiin lahaa gargaarka ay u baahan yihiin ayagoona u marsiinaya hay'adaha ay ka mid yihiin sidoo Alpha Trust oo kale. intii munaasabada ee socotay ayaa halkaasi waxaa shahaadooyin sharaf la guddoonsiiyay qaar ka mid shaqaalaha Alpha Trust iyo waliba shakhsiyaad ee Alpha u garatay inay mudan yihiin shaqo badan ee u qabteen ururka Alpha Trust. Alpha Trust waxa aan idin xasuusinayaa qof kasta oo maalkiisa maanta caawa la baxa oo Ilaahay dartii isagoo niyoonaya la baxa wuxuu walayaa ajar aan la soo koobi karin. waxyaalaha sida xun ee loo dhinto dad badan ayaa waxa ku dhimanaya shil baabuur waxyaalo badan ayuu qofku ku dhiman karaa laakiin sadaqadu waxay tahay waxa ugu wanaagsan ee aad Ilaahay ugu dhawaanaysid. adduun waa dheelmasho dhulkani waa habeen dhexe haddaad dego leedihiin dhaqaalahaad bixinaysaan dhaqsay ugu howlgalaan dhulkii hooyiyo dalkii Alpha dhowrtada runta dharaara ku geynaysee u dhiibta walaalayaal. waana garab taagnaa Alpha Trust waxaan ku joognaa ihtimaamka Yurub meesha ugu sarreysa ninka u tartamayay waxaan ku joognaa golihii deegaanka waxaan ku joognaa wakiilka Alpha Trust waxaan jooga qaybtii dhalinyarada oo gabdho badan oo wiilal badan oo Soomaaliyeed tegin oo Alpha Trust garab taagan ay gadaal fadhiyaan. waa sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay tan iyo markii la yeelay ururka samafalka ee Alpha Trust oo sanadaha ka hor inta badan ka howlgalaya dalka iyo waliba gudihiisa waxaana sanadkan lagu dhiirigelinaya ama u taagnaaba dhiirigelinta gaar ahaan markay timaado garab istaaga hooyada Soomaaliyeed oo ah barbaarinta caruurta iyo waliba bulshada qayb weyn ka qaadata. daahir al-kulmi oo ah gudoomiyaha hay'adda Alpha Trust oo marka hore mikrofoonka lagu soo dhabeeyay ayaa u mahadceliyay bulshaweyntii ka soo qayb gashay munaasabada. intaasi kadib wuxuu sheegay gudoomiye daahir in qorshaha sanadkan iyo sanadaha soo socda uu yahay in la ballaariyo xafiisyada iyo waliba wakiilada ay ku leeyihiin daafaha caalamka Alpha Trust waxaana uu sheegay in sanadkan muhiimadda ama diiradda ay saarayaan sidii gacan weyn ay u sii lahaayeen dhalaanka iyo hooyooyinka Soomaaliyeed maadaama ay u jilacsan yihiin bulshada. in la ballaariyo ururka Alpha Trust la geeyo around the world laga wada dhigo urur Soomaali ay leedahay wadanka meel walba ka tegi kara oo qabiil ku xirneen iyo qabyaalad iyo qur. gudoomiye daahir oo qodbadiisa meelo badan taabanaysa ayaa marka hore ka sheekeeyay waxqabadkii Alpha Trust sanadkii la soo dhaafay asagoona intaasi ku daray asaga iyo waliba sidoo kale kooxda Alpha Trust ee mar walba ay u taagan yihiin gargaarka bulshada jilacsan asagoona gacan ka helaya bulshada Soomaaliyeed. waxaan u baahanahay marka in Soomaali loo midoobo dhulkii hooy dhibaatada ka jirto waad aragteen aniga waxaan shakhsiga iyo tiimkii la socda hortaga caruurta baahida gaajada rafaadka indhala'aanta ay ku habsatay qashka hor tagaan dhibaataysan waxaad arkaysaa cunug aad u dhibaataysan hooyo aabba aan lahayn konton cunug ayaa jirtay video YouTube ku jira maalintaas aad ayaan u waxa yeelayo kontonkaas cunug ma haystaa waa $100 ay wax yarnaayeen in loogu fiiqdeen indhaha. marka Alpha Trust waxa u baahanahay dadka qiimaha leh lacagta idinka aad noo dhiibtaan 20 ka gelin ayaan waxaan ku soo qabanaa waxa aad aragteen. waxaan la kulmay Hargeysa oday Soomaaliya jir aabba Soomaaliya wiilkiisa last year aan soo saarnay iyo gabadha way ka waasheen silsilada lagu xiray aabbaas wuu ooy waxaan wuxuu eray ugu dhahay aqri adduunyo u dhaxeeyo dhax habeen saddexaad iyo maanta inta joogto bana aakhir ka sugayay markaan ku leeyahay aakhiran ka sugayay ma dhibanin hasa haatan nolosha nolol ma ahayn aad iyo aad bay nolosha daciif u ahayd
aabbaas annaga waa la gaarayna 20ka awoodana ilaaha baa iska leh Alpha Trust mar walbo waa go'aanka waxa ka go'an in aan la gaarno hooyada Soomaaliya ilaahu meel walba ay joogtaa cidna horsaay karta malaha maaha markii ugu horeysay ee munaasabad mid la mid ah ay ku qabtaan hay'adda samafalka magaalada London balse sanadkan waxay ugu dubaneed ayadoona goobjoog ay ahaayeen qaar ka mid ah wakiilada Alpha Trust ee daafaha caalamka Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashka Universal TV London